madaxweyne gaas iyo ra'iisul wasaare Sharmaarke oo ay wehelinayaan wasiirka wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka dawladda Puntland iyo wasiirka boostada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wadajir u dhigay xarunta cusub ee isgaarsiinta iyo kaydka xogaha ee hay'adaha dawladda Puntland oo gacan ka geysanayo bangiga adduunku. dhismuhu waxa uu ka koobnaan doonaa xafiisyo iyo qaybo loogu talagalay isgaarsiinta. wajiga koobaad ee mashruucan waxa ka faa'iideysan doona ilaa 5 hay'adood oo ay ka mid tahay madaxtooyada dawladda Puntland iyo wasaaradda warfaafinta ee dawladda Puntland. sida warfidiyeenada uu sheegay wasiirka warfaafinta dawladda Puntland mudane Maxamuud Xasan Soocade. waa xafiisyadii ee lagu shaqeyn lahaa laba xafiis halkan laga dhisi doonaa communication roomkiina gudaha wasaaradda ayuu ku yaalaa. waxa ugu horeyn doona waa dhowr wasaaradood ilaa 5 wasaaradood oo ay kamid tahay madaxtooyada dawladda Puntland. dhawaana insha Allah taala waxa noo haray waa anaga oo mashruucan u wadna hab sharciyeed ama hab shaqaale madaxweyne ha noqoto ama xaq kontraak ha noqoto dardaarankaaga iyo awaamiirtii inaanu ku fulino oo wixii shuruuca hawada u leeyahay ay aanu runtii aanu uga soo dhalaalno isla markaana mashruucan ugu noqdo mid midhaadhala insha Allah taala. madaxweynaha dawladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu xusay in muhiimaddu ay tahay in xukuumadda federaalku ay awood saarto sidii loo heli lahaa doorka ay ku leedahay dawladda Puntland inay hesho saami qaybsiga mashaariicda horumarineed ee dalka uu helo. ICT-gu barnaamij runtii waxa weeye wax badan ka bedeli doona aqoonta yani isdhaafsiga macluumaadka iyo communicationka ama se isgaarsiinta dalka oo dhan wax badan ka bedeli doona weeye. ra'iisul wasaare aad baad u mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gasho qaybna ka ahaataan xukuumaddaada iyo adigu hirgelinta mashruucan oo runtii ah waxyaabihii ay ka filaysay dawladda Puntland dawladda federaalka inay la qaybsato deeqda Soomaaliya loogu talagalay in Puntland wixii ay xaq u leedahay ay waajib ahayd inay heshana ay hesho. ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu ku amaanay dawladda Puntland sida ay uga faa'iideysatay mashaariicda horumarineed ee dalalka deeqaha bixiya ay siiyeen Puntland. waxa uu xusay in xukuumaddiisu ay awood saari doonto sidii Puntland loo soo gaarsiin lahaa saami qaybsiga mashaariicda horumarineed ee hesho xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. anagu runtii waxay noo tahay farxad inaan ka soo qayb galno arrintan mashruucan hadda iska kaashadeen dawladda federaalka iyo dawladda Puntland. waxay sida madaxweynaha hore sheegay waxa la wixii mashaariic ah ee dalka loo fidiyo ama deeqa dalku waa inay ku baahan waa in runtii lala qaysadaa horumarku waa inuu gaaraa. Cabdiqani Bardacad, Puntland TV, Garowe.